بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كله وحالي الموقتة دايدافوري كتالا لكن تاريخ والله برتصومة إن أرت الهجرة وحالة أساسي كن يوصل بقول أفرتني سدحدي إن Soomaalidu inteeda badan waxay xasuusan yihiin waxay yiraahdaan SYL waxa ka horeysay SNA oo ka jirtay gobolada waqooyi markii dambe way isku tageen ilaahay maaragtay guusho siiyay waxayna noqdeen ii sheegin dad walaalaha wada socda waad la socotaan waa dadka keenay maanta xurriyadan ama halkan aan fadhino ilaahayna abuuray ka sokow dhiigooda dhacaankooda ayay u horeen waxay calanka ugu horeeyay dhisbeen oo waqooyiga 26 Juun magaalada Hargeysa meesha oo ku yaala irritationka la yiraahdo Cabdullaahi Suldaan Timcade sareeyo munasqaamo saaxirkii kala guurnay ka nasiib ka nasar inta waxaan ku yiri horta in laagadu horta halkaas ay ahayd wax qabiil la yiraahdo iyo qurunkan maanta la joogana ma lahayn laagada waxa kamid ahaa waagi dhalinyarada in heesaha ay qaadi jireen intii xagga waxaan oo sheegay horta Sheekh Baana waxa kamid ah dhalinyaro Soomaali way dhaarato dhurwaaga dhulkooga ayay dhibsadeen dhaqaajiye dhiiga dhalinyaraday dhurwaaga dhulkeena ka soo dhiciyay macnaa waxaan ka wadaa erayada waxay ahaayeen lagu dagaal gali jiray laagada 13 kaasi laagada ahaa ee xamar joogay waxa asigana kamid ahaa oo markay shirayaan baabuurkiisa ku qaadi jiray wax walba la daba taagnaa in la dhigi jiray Allah yarxamo Xasan Giyaajo oo ku dhintay magaalada Stockholm dhowr sano ka hor waxa kale oo jira SYL kalimaana taariikhda waxa jira xamar qofkii tagaatay ama goboladaba daljirka daasoon taalada leeraa taasi waxay u taagan tahay qof kasta oo muwaadin ahay ama wadani ahay hooyo gabar wiil walaal oo dhiigooda dhacaankooda hantidooda u horay u geeriyooday xurriyada maanta aan joogno wax laga sheekeyn karo ma aan sheegay in fact marka la yiraahdo laga hadlo waa 72 sano marka waxaan loo baahan yahay Soomaalidu waxay tiraahdaa sideedaba in adduunyadu waa qor isku dhiib waxa la rabaa inay dhaxlaan dadkaasi dhiigooda ama annagaba hadda naga dambeeya waa dhalinyarada marka maxaa loo baahan yahay waxa la idinka baahan yahay horta koow hal mid aan idin faraaya ummadaan mid ahayn ule diirkeeda ahayn ummadaan mid ahayn ule diirkeeda ahaan malaha itaal kama toosa awaare ma agaasinta beesha aqoonsheed ma hagaagto aftirsiina la sheegto isir la isugu faano abnaqeenne horeeta odayaalna wacwana waa waxaan wada eednay waa suntii isticmaalku eeladahay nagu reebtay ololihii u horeeyay qabiilkoona la aasahaad midkaasi war migu raacsantiin qabiilka aan ku bedelno qarinimo insha Allah taala taariikhda lama soo koobi karo wadanka waxa ka jira dhibaatooyin badan qofkii walaalo wax diri kara haddii qofkan wax diri karin ha u duceeyo sida halkan waxaan rabaa inaan mahad gaar u celiyo Ilaahay ka soo walaalihii maartay halkan ugu kulmay xafadan soo qabanqaabiye han qof kasta oo cirbad caaradeed ka qabtay intiina timid ajri xasanaad Allah naga wada siiyo cameraman maxay ku siin waxa dhan kullu isku dardar baana ha u yaraado maxay Haruun ha u weynaado dhamaantiin waxa ilaahay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh شوف قالوا هالدقائق قالوا هالدقائق ما قام ودن با waxa jiro waxa la yiri way dhashan way dhimtaan waa soo noolaadaan qarnigii dhimad qarnigii soo noolaatay ilaa waxa ka sheekeynaysa aniga hataa ma ogahay waa iga weyntaan waa leedahay sukan dhameystay dadkiina asxaab kafmiya baasas noogu sheegtaan waxa kale oo aan rabay inaan iraahdo kulligiin waxa iga maragtihiin oo caaw ogaateen waxyaalo badan oo qarsoona oo kamid ah qaaluu inuu gabiyaa yahay oo fanaan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة سؤال والكي ويدي ما سيادة بهرت موقتها وينكم معهن موقتها داك ليه عقلي أنا واقول